بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني مانتا إن شاء الله هدو إلهي نوسامحو waxaan ka hadlaynaa maadaama muxaadaradeeni horey usoo dhamaatay xogaho yar dadka walaalaha waxaa iga dalbadeen in qasiidadii oo sheekh cabdulle isxaaq uu tiriyey inaan meeshan kasoo bandhigo. ikhwaani, horta sheekh cabdulle isxaaq yaa waaye? man huwa sheekh cabdulle isxaaq? qofkii ka imaaday koonfurta wuu yaqaanaa, waxay u yaqaanaan sheekh cabdulle isxaaq ay u yaqaanaan. waa wadaad oo caalim ah oo baar dheer meel ay ku duugiyeen koonfurta Soomaaliya. wuxuu wax kusoo bartay Ciraaq, af carabi wax kusoo bartay. markii dhulkii uu imaaday dadka markaa wuxuu afkii oo ay ku hadlayaan ama sida mayga ama ayuu ugu sheegi jiray diinta. waayo markaas masaajidu wax ka akhrin jiray. marka qasiidooyinka asaga uu tiriye waa qasiido waxa waaye oo musalsal waaye. aniga ma dhahayo waxaan ka bilaabayaa meeshii salaada tahaaraan ka bilaabaya ilaa xaggan geynaya ma dhahayo, laakiin qasiidada waxa waaye waa isku xigta. waayo dadaa jira oo wadankii degan oo si fiican u yaqaano, laakiin insha Allah waxaan sameynayaa inaan hal aan kasoo qaato. hal aan kasoo qaadanaya. qasiidada waxay leedahay مقدمة سدا كتابة هذا مثلا كتابة طهارة، مثلا كتابة طهارة لقى بلاوة كتب طهارة أسعنا أساسي أسعنا. مركز صلاة كهضلا، صومك كهضيا، حجك كهضيا، فرائدك كهضيا، حتى وحو كهضيا بر الوالدين. موضوع كست أو دين تكسر أو كهضل جري. ما دام موضوع يدي مركز ساس وكهضل جري شيخة. هذا مركب موضوع اسكو ما حيجينا يعني ما أنت وحن كهذا الصلاة ما ضحايا أم الصوم ما ضحايا أم الزكاة ما ضحايا، لكن وحن سمينا إن شاء الله دو إله إدمه إن أنكسر قاطه. هل إن أنكسر قاطه المر إن أنكسر قاطه. مر وذات روحه هذا الجري سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسوق على الجري. وايو سيرة واحد يكون بحذا كتابه يكون قرنتاي سكولات كانوا سوقاتي. dadka ilmaha yaryar oo ibtidaayiga oo hadaa weydiiso nabiga intuu ku dhashtay uu ku sheega markuu ku dhashtay nabiga Madiina lagu duugay waxa soo dhan ilmaha. laakiin asaga markuu meeshu joogay dadkii markaa wuxuu ugu sheegay afka mayga. haddaan ka bilaawno siirada nabiga, markuu siirada nabiga u daba socday muxuu dhahay? markuu bilaabay muxuu dhahay? nabigu markuu kada wuxuu dhahay aw shay abdulluwa ayutisna aminu arla andorne abtar adaaji ala nasari. sida maxaa loo jeedaa? kulli wuxuu leeyahay nabiga aabiis Abdullah waa uu leeyahay Abdullah ibn Abdul Muttalib, hooyisna waxa waaye Aamina bint Wahb. marka waxaan laga maarmaanahay inaan barano uu leeyahay. qofka markaad u sheegto muxaadarada ama dhahdo aad u sheegto waxa laga yaabaa inuu fahmo, laakiin haddii adiga af carabi ah u sheegtid waxa laga yaabaa in afkii carabiga ninkii macnaha uu fahmi waayo. dadkan waa taqaanaan qof markii luuqadiisa ama waxa uu fahmayo waxa looga sheego si fiican u dhageysanay saas uu leeyahay. marka asoo siirada nabiga uu ku jiro wuxuu leeyahay haddana mar labaad wuxuu dhahay gubul shay isgoowaay gushay litun iyo saduwaahe gubul samaashay geeri iyo naay gudmadhaan u dhahay. gubul waa taqaanaa. gubul waxa waaye gubul shay isgoowaay waa jismigiisa. nabiga jismigiisa uu carfi jiray uu leeyahay. jismi nabiga calayhi salaatu wasalaam uu carfi jiray. cimrigiisna wuxuu ahaa 63 uu leeyahay. ilaa hadda waa dhintii nabiga calayhi salaatu wasalaam, laakiin qabriga sidiisu uu jira uu leeyahay. wuxuu daba socnaa ilaa xayi waay nabiga qabrigiisu ku jira. amaanta nabiga markuu nabiga saas u amaanay marka